toban maalmood hore loo soo guuray bishu iyadoo afarun baa la yidhi may saaka waa 14 Oktoobar khamiis oo bishu afar tahay jimcihii ku xigay ayuu la yidhi waa khamiistani waxa weeyaan waa khamiistii 14aad bay ahayd maalinta ku xigtaana 15 bay noqonaysaa ingiriiska diiday 200 sannadood in ku dhadhow buu diidanaa ingiriisku 1752 meelahaasi ayuu isna iska aqbalay marka isaga waqtigiiba uu ku sii kordhayo 12 maalmood buu isagu guuray meelahaasi ala kulli xaal waxa ay gaala walaaqday hore iyo dib u guurtay sanamadeedii waxeeda u baxsatay maxaad ula dabaaldegaysaa adiga kaaga xidhan maxaa ciid ka dhigay haba yaraatee ciidahaasi wax ay shareecada islaamiga meel kaga leeyihiin ma jiro su'aasha isweydiinta le markaa waxay tahay waxaan oo dhan fikradda ka dambaysa ilaahay wuxuu quraanka inagu leeyahay al-yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam diina wardiinta wardiin dhamaystiray baa ilaahayna leeyahay muslimiinta dibta qabsatay waxa weeyaan multicultural society markay la noolaadeen bulsho noociyad tira badan isugu jirto diimo badan haysta may kala garanin waxay qaadan lahaayeen iyo waxay ka tagi lahaayeen ee wax walba way iska qaateen waxyaabo dadka aynu la wadaagi karnaa jira say culimada qaar badan ay qabaan مثلا ninka gaalka ah haddii ilmo u dhasho waa la tahniyadeyn karaa dhib maaha waqti aan ahayn Christmasyadii waxa kan waa la siin karaa maxaa la yidhaahdaa hadiyad وهدايا ولا قادن كرا أما تهنية كصاب سيسن عيده إلى هاجي ينور شان كوجو تهنية دين يدي ما بنانا كريسمس دين تكو تهنية ديسا ما بنانا ما بنانا وح معصية وكشرين تكو تهنية ديسو إذا تهنيات كلا سمينا يوم أيامها وثنية أما أيامها ديمها كلا هيستان كريستيان يهود واحد دون تهاتو ما بنانا لا هدية بحنت يدان بنانين ولا تهنية يدان بنانين سا جماهير العلماء وبدنيهين ولا كدقن كيدان بنانين دقن مدى يديمه وين كلا صعنادان وين دقن قالت كم الدقنين